xilli dhawaan dadkii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle ay saameyn ku yeesheen nolosha qoysaskii deganaa guryaha ay daadadkaasi ku fataheen ayaa waxaa la bilaabay gurmad loo sameynayo dadkaasi xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isu xilqaamay inay u gurmadaan qoysaskaasi ayaa waxa ay sameeyeen dadaalo lagu garab istaagayo shacabkaasi iyadoo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku nool degmada Afgooye iyo deegaano kale oo kamid ah gobolada dalka ay bilaabeen Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin maadaama ay dadku isugu darsameen daadadkii ka dhashay roobabka xagaaga iyo fatahaadda webiga Shabeelle isagoo dalbay in gurmad kala duwan oo dhan walba la gaarsiiyo dadkaasi socda dadaalo lagu garab istaagayo dadka shacabka ah ee uu saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle waxaana xusid mudan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wado dadaalo lagu caawinayo shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatada ay ka soo gaartay daadadkii roobka iyo fatahaadda webiga Shabeelle Maxamed